kusoo dhawaada mar kale iyo weliba janaalkeena Somali News oo idinku soo bandhigno waxyaabo aad iyo aad u muhiim badan. Casharada ugu dambeeyay waxay ahaayeen khudaarta oo aynu xoogga saaraynay oo ilaa iyo dhowr khudaar aynu ka soo hadalnay maantana iyo weliba mirooyin. Maantana waxaynu ka hadli doonaa faa'iidada toonta oo ah runtii geed aad iyo aad u caafimaad badan. haddii aad ku cusub tahay janaalkeena si aad ula socoto dhammaan khudaarta iyo weliba dhirta oo aynu soo bandhigi doono faa'iidadooda iyo sida looga faa'iideysto, fadlan janaalkeena subscribe saar si ay kuu soo gaaraan. adiguna aad iyo aad ugu mahadsan tahay, annaguna si dhiirigelin ay noogu noqoto. bismillah. Toontu waxay dejisaa dhiigkarka cudurro badan oo dilaa ah oo ay ka mid yihiin wadne xanuunka iyo stroke-ga. waa sababaha ugu weyn ee keena dhiigkarka. daraasad la sameeyay ayaana lagu ogaaday inay toontu daawo u tahay dhiigkarka. waxtarkeeda ama saameynteeda ayaana la ogaaday inay la siman tahay daawada lagu daaweeyo dhiigkarka ee loo yaqaano Atenolol. daraasad waxay sheegtay in doorka loo baahan yahay inuu cuno qofka dhiigkarka qaba uu yahay 4 xabo oo toon qaangaar ah maalin kasta muddo 24 maalmood ah. sidoo kaleeto toonta waxaa lagu daaweeyaa kolestaroolka. dhanka daawo dhireedka, toonta waa shayga ugu horeeya ee loo qaato in lagula tacaalo kolestaroolka. daraasad lagu sameeyay bini'aadam iyo xayawaan kale ayaa lagu ogaaday inay toontu yareyn karto heerka kolestaroolka xun, gaar ahaan dadka qaba kolestaroolka noociisa khatarta ah. sidoo kaleeto toonta waxay ka hortagtaa maskax la'aanta. toonta waxay ka hortagtaa cudurrada keeno maskax la'aanta ee Alzheimer's iyo weliba dementia. fiiro gaar ah, daraasada qaar waxa ay sheegeen in toontu ay si ku meel gaar ah u daaweyn karto cudurka kolestaroolka oo aysan dabar goyn karin. qaababka aad u isticmaalayso toonta ayaa waxa ay kala yihiin 2 qaabood. qaabka koowaad waa adigoo cuntada ku karinayo markii cunada aad markaas isticmaalayso oo caafimaad ahaan ku wanaagsan adigoo ku dhex karinayo. sidoo kaleeto adiga oo inta biyo kulul ku kariyay uunsi ahaan mise uumigeeda biyaha kuleelka isku qaacinayo, ayadana sidaas waa loo daaweeyaa. waxaan filayaa inaad ka faa'iideysatay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.